بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله الصومالي ذا ميل كستو جوجتان وقتي والبوي إدين تهي وحان لله حي مالينك هايدين معناضو حبينك هايدين معناضو وقتي كستو أيكو تهي وصاحبكين أراح طبعا عاوي سيدا قوانك آد كو أركتين تايتلك كوري ثامنيلك وحان إدين وداقي دونا قابك وفضود go'aan aad u qaadan karayso ama furaha go'aan qaadashada waxaan ka warqabnaa go'aanka bini'aadanka inuu qayb libaax leh ka yahay noloshooda waxyaabihii ugu badnaa ee aad soo sameysay marka dib u fiiriso qaladaad fara badan oo aad sameysay waxyaabo badan oo ku hergalay guul aad gaartay waxyaabo fara badan oo aad sameysay waxa base u ahaa go'aan qaadashadii aad markaasi sameysay haddaba dadka aniga rag u oran maayo laakiin dadka oo idil go'aanku way ku kala fiican yihiin waa la kala go'aan adag yahay waa la kala go'aan qaadasho oo og yahay haddana laakiin go'aanka aad qaadanaysid su'aal waxay ka taagan tahay waa go'aan noocee ah qaab noocee ah ayaad go'aanka u qaadataa ma waxaad qaadataa go'aanka maskaxdaada inaad soo kacdid aad tiraahdid waxaasan sameynaya arintaasan maanta go'aansaday waxaasan sameynaya masaasa u qaadataa go'aankaada ma ka fikirtaa waqti miyaad gelisaa oo ma stebiyo noocee aad isticmaashaa go'aanka qaabkeed u qaadataa haddaba channelka videogan wuxuu ka caawin doonaa qaabka ugu fudud ee aad ku qaadan karto go'aan sax ah oo aad marnaba ka shalaynaynin haddaba go'aan qaadashadu laba waaye qofna waa u dhashayo markaasi ayuu ilaahay siiyaa aragtidii markaasi wanaagsaneyd isagoo salaadii istiqaarada tukanayo qofna way dib ayay ku noqotaa inuu go'aan qaato hebel waxaad maqashay go'aankiisa dib waayo go'aan waa qaadan laayahay waa malacleyn badan yahay haddaba maanta waxaan kula wadaagayaa 6 qodob oo ka caawinayso sida loo qaato go'aan qurux fara badan oo aad hadhow ka shalayn go'aanka haddaba maxay tahay 6 qodob ee go'aanka aad ku qaadanayso kow identify your problem or your decision marka ugu horeyso waxaad xaqiijisaa go'aan noocee ah ayaad rabtaa inaad qaadato go'aan noocee ah ayaad rabtaa horta marka hore inaad qaadato waxa aad go'aanka ka sameynayso identify garee xaqiiji war maxay tahay waxaan rabaa horta inaad go'aan ka sameeyo ma ganacsi baan furi rabaa ma iskuul baan rabaa inaan furo ma Mareykan baan rabaa inaan aado ma Kanada inaan aado optionada noocee waaye marka hore horta waxaad xaqiijisaa wixii go'aanka aad ka qaadan lahayd halkaas dhigo qodobka labaad ogow mar walba go'aanka aadan qaadan ama go'aanka aad qaadanaysid waxa jiro optionno fara badan optionadii faraha badnaa ee ku furan inaad qaadatid book soo qaado qalin yarna soo qaado list gareen waxaad tiraahdaa kan waan qaadan karaa kan waan qaadan karaa midkan waan qaadan karaa midkan waan qaadan karaa markii aad listigii go'aanadii ku furnaa aad qortid oo aad hortaada soo dhigtid waxa ku fududaanayso in aad qaadato midka ugu wanaagsan go'aanadii aad qortay haddaba go'aanka marka hore marka qodobka labaad qoro waxyaabihii aad rabtay inaad ka go'aansatid waa qodobka labaad qodobka saddexaad ogow wax walbo adduunka joogo waxay leeyihiin khasaaro iyo faa'iido go'aanada aad fiirisay waxaad qiimeynaysaa optionada aan idin sheegay oo list garaysay mid walba faa'iidadeeda iyo khasaaradeeda aad qoraysaa in case go'aankan haddii aan qaato faa'iido intee leeg ayaa ku jirto khasaaro noocee ah ayaa ka soo bixi karo labadooda marka faa'iidadii khasaarihii aad isku barbar dhigaysaa haddii faa'iidadii ay badan tahay go'aankii waad qaadanaysaa haddii ay khasaaradii badan tahayna waad iska daynaysaa mid kale optionkii kale ayaad qaadanaysaa qodobka afraad markii aad qaadatay oo aad maskaxdaadii la kaashatay identify garaysay list garaysay khasaarahoodii faa'iidadoodina aad maxaa la jiray aad baaritaano ku sameysay qodobka afraad waxay tahay xilligan waa xilligii aad sameyn lahayd ficilkii go'aankaadii si uu miro dhal u noqdo haddaba qofka inuu ficil sameeyo qofka uu dhihi karaa wax baan sameynaya laakiin waxa ugu weyn ee tusaya qofka inuu go'aan qaatay ama wax uu hirgeliyay waa ficilkii
uu sameeyay maskaxdiisii iyo hadalladii uu meel dhigtay waa in ficil ama action lagu daro qodobka afraad waa inaad ficil ku darto qodobka shanaad maxay tahay marka qodobka shanaad waa qodob la dhaho review-ga macnaheedu waxay tahay waa inaad go'aankii aad qaadatay dib u eegto oo aad fiiriso steebyadii aad raacday qaabkay ahaayeen si degan baad ku raacday xulashadaadu noocay ahayd ma go'aan lagu kalsoonaan karaa oo long term go'aan miya ma go'aan qof bil aadan ah ama maxaa la jiray go'aan qof markuu qaadanayo go'aanka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu qofka bil aadanka noloshiisa ama riski gelin karto ama guul gelin karto go'aanka aad qaadatay ma yahay mid wanaagsan oo u horseedayo inaad gaartid hadafkii markaasi aad go'aanka u qaadatay haddaba aan ku celiyo oo aan review gareeyo ugu horta baro wixii aad rabtay inaad qaadatid noocay ahaayeen laba list garee oo qor si marka dambe aad optionka uga baxday optionada dhan qor saddex optionadii aad qortay qiimeyn ku samee baaritaan ku samee faa'iidadoodii iyo khasaaradooodii afar ficil u bedel qoraalkii aad qortay iyo go'aankii aad soo qaadatay shan dib u ogow review ku samee haddaba intaas ayaan qodobadaas kusoo gabagabeynaya waxaana rajeynayaa inaad noqon doontid nin ama qof ama gabar go'aan qaadashada aad ugu wanaagsan weligaa go'aan iska qaadan adigoo aana stepyadan raacin amaba aad uga fikirin go'aanka aad qaadanaysid caqabada uu lahaan doono iyo faa'iidada uu lahaan doono sababtoo ah go'aanka ama waad ka shalayn doontaa ama waad ku ammaanaan doontaa ama waad ku farxi doontaa intaas ayaan kusoo gabagabeynaya waxaa iga xasuusa inaad subscribe tiraahdaan like-na aad saartaan asxaabta maalinka ha idiin wacnaado weli waxaan ku wada gudi jirnaa maalmihii ciidda ee farxadda badnaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu